daawadayaal waxaan hoyga magaalada Qardho loogu soo raray aan ku booqday Nasro Xasan Ibrahim oo kamid ahayd dadkii musiibadii daadadku ku soo fatahay magaalada Qardho saameynta adag geystay. Nasro waxay musiibadaas ku weyday saddex kamid ah caruurteedii waxayna nala wadaagaysaa xanuunkii yani qaabkii ay biyahaasi ay fatahaadaasi ay u saameeyeen. sidoo kale waxay nala wadaagaysaa qaabkii ay guriga ugu soo galeen iyo xaaladii xiligaasi. Nasro ay ku soo dhawaatay telefishinka STN waxaan nooga warantaa qaabkii ay ku soo galeen. walaal biyuhu waxay soo galeen ciyaalka yaryarka aan ma moodeen mataqaanta masiibadan walaal inay dhacayso wax kastana Ilaahay baa qadarta, Ilaahay baa qoray wixii qoran, Rabbi baa qoray. waan soo jeeday walaal waxay sheegtay biyuhu daaqadaha inaga soo jabiyeen ciyaalka yaryarka buu walaal la qaaday kadibna biyuhu 3 mitir walaal nagu maray waxay sheegtay albaabka nagu soo jabiyeen deyrkii way guriyay way nagu soo dumiyeen biyuhu walaal saasay noo qaateen. Ilaahay baa mataqaanta anigana i badbaadi xaafada quriyad walaal weeye saddex ciyaal saas oo la tageen anigana Ilaahay baa iga badbaadiyay walaal. biyaha albaabka furay albaabka ma furin albaabka walaal jubbu hay markii dambe xoog biyaha deyrkii wixii isku yimid boo albaabka fag soo yiri nagu soo jabiyeen kadib oo marka xiliga biyuhu gudaha ku jireen biyuhu gudaha way ku jireen biyuhu mataqaanta meel ay maraan marka way biyuhu guriga nagu garaacay 3 mitir nagu gaareen kadibna waxay sheegtay deyrarkii oo dimay biyuhu nagu soo celiyeen biyuhu hadii 3 mitir gaareen caruurta xagee ku haysay caruurta waa la kacaa ku fayay iyagoo 3 mitir sawga marna aan waan hafanay marna walaal ayagii baan gurayay oo kadib sidii ana u guraya bay waxay sheegtay kadibna albaabka nagu soo sidii walaal biyuhu noola bixeen oo badda ciyaakina ku dareen anigana Ilaahay baa iga badbaadiyay. markay biyihii la baxeen albaabka nagu soo jabiyeen ciyaalkina la baxeen adigu marka xagee aniga waxaan ku badbaaday xarig deyrka kale baartada kale deyrkii kale baartadiisa kale xarig ku xidhnaa oo reer xarig ugu xidhnaa baartadayda kale ku badbaaday halkaas habeenkii oo ku kacaan ku fayay. Ilaahay baa mataqaantay qadaray ya soo gaaray marka islaan Ilaahay baa soo gaarsan oo qeyliyay oo qeylidaaniyay cid ii soo baxday markii biyihii yaraadeen damcayn la moodin la soo gal kara markaas la soo galay markaas walaalaha kale igu badbaadiyay ani iyo dadkii muslimiinta ee kale isaguna nala dhashay isla deganeen islaanaha ayagana halkaas lagu badbaadiyay oo laga guray xilligii. Okay guriga kaliya miyaa ku sugnaa markii u horeysay guriga aan deganaa kaliya waa ku sugnaa laakiin baartada kale reer kale walaalaha deganaayo ciyaalka ehelkooga deganaa laakiin ayagu waxba ma noqonin dad waxba kama noqonin guriyooda dumay mooyeen. marka ugu dambeyntii cid kula soo xiriiray ma jiraa oo dad walaal ila soo xiriiray shalay waan ogaa laakiin waxay sheegtay cid sidii oo kale ii timid hadda sida horfaamo bimiyo kale iyo gabdhaheeda iyo islaanka Ilaahay mooyeen ma arag cid ii timid oo sidii oo kale iigu timid. okay wali cid kuma iman ciidimay wali walaal ciidimay manin hagaag daawadayaal sida u jeedaan wali cid soo booqatay oo dareenka la qaybsatay ma jiro. waxaan rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay gabadhaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan ee la qaybsadaan dareenka oo u gargaaraan. Mustafa Sahil Maxamed Xasan wararka warbaahinta Star magaalada Qardho.